soo dhawaada daawadayaal galab wanaagsan qodobada xiisaha leh aad galabnimadan aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraale laga helana waxaa ka mid noqonaya khasaare ka dhashay dagaalkii saakay ka qarxay galbeedka degmada Lughaye haddaba khasaare intee leeg ayaa halkaasi ka dhacay iyeysa tahay cidda halkaasi ku dagaalamay muuqaalkan ayaan saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraale laga helana waxaa markaa ka mid noqonaya ciidamada Somaliland oo isku dayaya in ay dagaal adag ay ku qaadaan ciidamada beesha Ciise ee ku sugan magaalada Xariirad haddaba maxay tahay waqtigan ku soo beegay dagaalkan adag ay doonayaan in beesha Ciise lagu qaado iyo ciidamada Somaliland oo halkaasi rabaan in ay si dhaqso ay ku tagaan muuqaalkan ayaan saaxiibayaal idin kula wadaagi doonaa sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan haddii Baraale laga helana waxaa ka mid noqonaya in ka badan kun askari oo maxaabiisa oo isugu jiro ciidamada Somaliland iyo kuwa beesha Gadabursi ayaana ay markaasi beesha Ciise ay doonaysaa inay warbaahinta u soo bandhigto haddaba saaxiibayaal muuqaalkan ayaan sidoo kale idin kula wadaagi doonaa xogtaasi oo faahfaahsan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh aad halkan ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya shacabkii ugu faraha badnaa ayaa isaga qaxaya magaalada Baydhabo kadib markii ciidamo ka amar qaato madaxweynihii hore maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu weerar ku soo qaaday ciidamadiisa magaalada Baydhabo xilli halkaasi khasaarooyin iyo waliba sidoo kale dhimasho iyo dhaawacyo fara badan ka dhacday muuqaalkan ayaan saaxiibayaal sidoo kale idin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale oo aan idin qarinayo ee saaxiibayaal ku daawan doontaan soo dhawaada aniga waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna la garay siin share garay saaxiibada la wadaag ka mid noqo saaxiibada cusub ee nagu soo biiraya si aan u gaarno 10,000 oo subscribe waxay kaliya ayaa nooga dhiman qof kasta oo muuqaalkan daawanaya oo mar walba haddii aad halkan aad soo gaarto oo daawanaysid waxaan ka codsanayaa inaad like dhado muuqaalkan like meel dheer ay muuqaalka gaarsiisay mahsanidin hagaag aynu ku bilaawno fiid wanaagsan idin leeyahay haddii aan ku bilaawnana qodobkeena ugu horeeyana waxaa lagu leeyahay khasaare ka dhashay dagaalkii saakay ka qarxay galbeedka degmada Lughaye saakay dagaal xoogan oo u dhaxeeya beesha Ciise iyo waliba sidoo kale kuwa maartay samroonku ayaana dhaxmaray khasaarooyin lixaad leh ayaana halkaasi laga soo warinayaa waliba daawada ogow weerarkan samroonku ayaga ayaa soo qaaday oo Ciise ayaa laga soo qaaday balse Ciise jawaab degdeg ah ayay ka bixiyeen dagaalkii qaraara ay la galeen ciidamada samroonku oo isku dayay in ay guud ahaan Lughaye iyo meelo kamidaba ay awoodooda ay gacantooda soo gasho balse ciidamada geesiyaasha madaniga beesha Ciise ayaana gabi ahaanba diiday wax walbo ay damacsanaayeen ama saan walbo ay rabeen inay goobta ay dhigaan khasaare markaasi ka dhashay dagaalkii saakay ka qarxay galbeedka degmada Lughaye ayaana sheegaya inay jiraan dhimasho aad u fara badan iyo dhaawacyo oo markaasi soo gaara dhinaca samroonku beesha Ciise waxa la leeyahay tan iyo markii dagaalkan uu bilowday hal askari oo kaliya ayaa uga dhintay ilaa iyo 3 kalena way uga dhaawacantay waa inta hadda dagaalka uu socdo halka dhinaca Gadabursu ay wararkuna markaa ay sheegayaan ilaa iyo 4 ruux oo halkaasi ay ku geeriyootay 6 kalena ay ku dhaawacmeen intii dagaalka uu socday dagaalkan ayaa ilaa hadda waliba dhaqdhaqaaqan uu sii soconaya meel u jirto 5 kilomitir dhinaca galbeedka ay kaga beegan tahay degmada Lughaye ayuuna hadda dagaalkan ee gobolka Awdal ayuu si gaar ah uga soconaya iyadoona saacadii u dambeeyayna dagaalkan si goosgoos ah ama rasaas goosgoos ah goobta laga maqlaya balse dagaalkan samroonku ayuu soo qaaday oo waxa islaayeen Ciise sidaas uma foojigna oo inay ka soo dullacaan ay rabeen laakiin mudankood ayaa la marsiyay oo jawaab degdeg ayaa laga bixiyay 4 qof oo geeri ilaa iyo 6 dhaawac ah ayaa halkaasi laga gaarsiiyay halka beesha Ciise 3 qof ay ka dhaawacmeen halka hal askarina waa halkaasi goobta uga dhintay iyagoona isagoo ku jira waajibaadkiisa oo ay si weyn uga diidan yihiin samroonku in ay si fudud ay ku soo dhaafaan Lughaye haddaba inkastoo hadda wali xaaladdu ay tahay mid culus oo laga yaabo in saacadaha soo socda la isku laabto inkastoo hadda rasaas goosgoos laga maqlaya haddana saakay waxa la isku adeegsaday diryanka madaaficda iyo waliba sidoo kale hubka noocyadiisa kala duwan ayaa laga maqlayay galbeedka degmada Lughaye
iyadoona halkaasi xaalad xun ay markaas saaki ka taagneed walow ay hadda laftigeeda xaaladda ay yara degan tahay balse laga yaabo in saacadaha soo socdo ay isku laabtaan samaroonku iyo ciisuhu dagaal kale oo halkaasi uu ka qarxo marka wixii soo kordhana muuqaaladan dambe aan idinku wadaagi doonaa ciidamada Somaliland ayaa isku diyaarinaya dagaal adag oo ay rabaan inay ku qaadaan beesha ciise iyagoo markaasi si degdeg ay rabaan inay ku gaaraan xariirad maalmihii dambe dagaalka waa ay ka nasteen balse mar kale ayaa dib loo soo cusboonaysiinayaa ciidamo aad u far badan ayaa lagu arkayaa oo Somaliland ah kuwaas oo markaasi u soo ruqaansaday dhinaca maartay degmada xariirad iyagoona ay doonayaan in guud ahaanba ay halkaasi kala wareegaan ciisuhuna ay markaasi dhegta dhiiga u diraan balse ciidamada geesiyaasha beesha ciise iyo waliba sidoo kale saraakiishooda ayaa amar buuxda lagu siiyey inay heegan buuxda adag ay galaan si ay isaga dhiciyaan maamulka Somaliland oo si gardara ah ku maagaya ciidamada madaniga ee beesha ciise tan iyo markii dagaalkan uu bilowday marka nimankii ciise ahaa hadda way diyaar garoobeen waxayna markaasi xogu ay tilmaamayaan in ciidamadan ay hub fara badan iyo waliba sidoo kale gaadiid dagaal oo aan inaba caadiyen inay wataan maamulka Somaliland saacadaha soo socdana ay si fudud inay ku gaaraan ay rabaan xiriirad balse laakiin waxa ay markaasi ciidamada kuwa beesha ciise ay qorsheynayaan sidii ay uga hortagi lahaayeen sidoo kale waxa ay doonayaan in ay markaasi dhabagal ay ku sameeyaan waa sidii hore u dhacday iyagoona ay halkaasi askar fara badan looga laayay ciidamadaas Somaliland iyo Samaroonkuba haddase waxa ay rajeynayaan inay xiriirad si nabad ay ku gaaraan oo ay rabaan in ciise ay halkaasi ku burburstaan ciisena waa u diyaar garoobay meel kasta oo beesha ciise ah askartooda ku sugneed ugaaska guud ee beesha ciise ayaaba mar hore heegan geliyay kuwaas oo yacni halka ay joogaan ay ka dagaalami doonaan haddii dagaalkan uu sii socdana waxay dhibaato adag ku noqon doontaa Samaroonku iyo waliba sidoo kale Somaliland dhanka kalena haddii aan fiiriyana in ka badan 1,000 askari oo ka tirsanaa maxaabiistii Samaroon iyo Gadabursu iyo Somaliland isugu jira ayay gacanta ku hayaan beesha ciise iyagoona ay markaasi magaalada Dirdhawe ay ciidamadaasi askartaasi maxaabiista ah ciisu ay hayaan halkaasi lagu hayaa marba maalin 3 4 5 6 sidii loo soo qabanay intuu dagaalku u bilowday 1,000 askari ayuu gaaray maxaabiista laga hayo Somaliland iyo Samaroonku iyagoona halkaasi ay hadda beesha ciise ay qorsheynayaan in saxaafadda u soo bandhigaan si ay u arkaan waxqabadkii waliba sidoo kale dagaaladii adag ay galeen miro dhalkooda kuwaas oo ay ku doonayaan in askartan ay saxaafadda u soo bandhigaan ugaaska guud ee beesha ciise ayaana saakay kusoo safray dalka Ethiopia isagoona ku wajahnaa sidii u soo gaaro awdal iyo silal meel ka mid ah si uu markaasi maxaabiistaasi faraha badnaa loo soo bandhigayo ogowse daawaday horay ciidamadan 1,000 askari way ka horay oo uga badnaayeen maxaa yeelay ugaaska guud ee beesha ciise ayaa horay waxa uu afis u fidiyey dad markaasi lixaadkooda aan dhamaystirnayn oo dagaalka lagu qabtay iyo waliba sidoo kale kuwa haween ah oo iyagana markaasi garab iyo gaashaan u ahaaba Samaroonku ayay ciidamada kuwa beesha ciise iyo waliba sidoo kale ugaaska guud ee beesha ciise Mustafa Ibrahim ay markaasi sii daayeen haddase xaaladdu waxa ay markaasi noqon doontaa in gebi ahaanba loo soo bandhigo warbaahinta ayna arkaan maxaabiista faraha badnaa ee laga haysto Somaliland iyo waliba sidoo kale Samaroon dagaalkan oo sii dheeraanaya haddii ciidamadaasi ay soo bandhigaan ciisuhu waxay sii noqon doontaa in arinku uu hadda sii noqdo faanoli fara ka maqadno oo hadda ayuu bilow sii noqon doonaa ciisuhu markan way isku soo tashteen ugaasidoodii nabadoonadooda cuqaashoodii waxgaradkoodaba dhammaantood waxay diyaar u yihiin inay dagaalamaan oo ay hirgeliyaan buugga heer ciise sidoo kalena ay hirgeliyaan maamulka Guban State ilaa maan nafta ay ku jirto mooyee marka nimanka ciise ahaa way isdiyaariyeen way isku tashteen ugaaskiya soo socdo waxaa la filayaa maalmaha soo socdo dagaalo ka dhana Samaroonku iyo Somaliland inuu dhaco iyadoona markaasi horey sidaan oo kale looga adkaaday Samaroon iyo waliba sidoo kale Somaliland haddana waxa ay rabaan beesha ciise in ay mar kale ka adkaadaan Samaroonku iyo waliba sidoo kale Somaliland qodobkan ugu dambeeyana haddii aan fiiriyana in shacbigii ugu faraha badnaa ayaa isaga qaxay magaalada Baydhabo kadib markii diryanka rasaastii hubka noocyadiisa kala duwan halkaasi la isku adeegsanaya ciidamada ka amar qaata Cabdicasiis Laftagareen ayaa dhowr habeen ka hor waxay soo weerareen magaalada Baydhabo iyagoona halkaasi la isku adeegsaday dagaalkana uu soo gaaray bartamaha magaalada Baydhabo iyadoona khasaarooyin waaweyn laga soo warinayay rag dhalinyaro ah
iyo dad shacab ah iyo askar isugu jirtaba ayaa halkaasi ku geeriyootay koonfur galbeed markii dagaalka uu dhammaadayna waxay soo bandhigeen 53 askari oo ka tirsanaa daraawiishta duurka ku jirta ee Cabdicasiis Laftagareen ka amar qaataan ilaa iyo 7 askari oo ka tirsanaa ciidamadaasina halkaasi lagu dilay inkastoo dowladda koonfur galbeed askarta laftigeeda laga dilay haddana sir rasmi ah lama hayo oo lagu xaqiijinayo dhaawacyada waliba sidoo kale khasaarooyinka lixaad kale ee la gaarsiiyey balse waxaa kaliya la soo bandhigay ee ahayd ciidamada kuwa daraawiishta koonfur galbeed oo halkaasi maxaabiisi waliba sidoo kale askar leedba laga qabtay iyo gaari la sheegay in kooxda al-shabaab hore u qabsatay oo ay lagu arkay ciidamada Cabdicasiis Laftagareen taas oo loo markaasi warbaahinta loo sheegay in kooxda al-shabaab iyo waliba sidoo kale ciidamada Laftagareen ay ahaayeen hal mid ayna magaaladan ku soo duuleen balse dadka shacbiga ayaa durbo bilaabay inay gabi ahaanba magaalada isaga qaxaan kadib markii ay u adkeysan waayeen dareenka rasaasta iyo hubiyaal maalmo kadib markii dagaalka uu dhacayna ciidamada Ethiopia ayaa banaanka magaalada iyo gudaheedaba ay ku garaaceen madaafiic iyo hubka noocyadiisa kala duwan daawadi haddii dalkan la soo gaarto xataa qof walba wanaagsan wax sinaxsan kaaga codsanaya in aad kanalkan soo subscribe gareysid muuqaalkan la garay si in share garay saaxiibada la wadaag kamid noqo saaxiibada cusub nagu soo biiray si aan u gaarno 10,000 oo subscribe oo kuma haysantiin daawashada muuqaalka meestirnid